رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدني محمد حسين روبله ayaa maanta goobjoog ka ah heshiis ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya Mareykanka kaasoo dowladda Mareykanku ku cafisay deyn lacageed oo ay Soomaaliya ku lahayd. Heshiiskan ayaa daba socday shirkii naadiga Paris ee bishii March oo lagu go'aamiyay in Soomaaliya laga cafiyo deyn dhan 1.4 bilyan oo dollar kaasi oo dhigayay in Soomaaliya ay mid ula saxiixatay heshiisyo ay deymaha uga cafinayaan 10 dal ee ku leh deymaha ugu badan. This really is a historic time. waa xilli taariikhi ah Soomaaliya waa dalka 37 ee ka jira barnaamijka deyn cafinta ee sanduuqa lacagta adduunka. tani waxay Soomaaliya u furaysaa mustaqbal ifaya. marka laga hadlayo dalalka barnaamijkan ka faa'iideystay Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu wanaagsan ee dhinaca maamulka dhaqaalaha. waxay kaloo muhiimad gaar u leedahay barnaamijyada mustaqbalka. Investment in the future of the people of Somalia and also for the government for what you have done to recognize this historic program and what you have done for the people of Somalia in the future. dhanka Soomaaliya waxa heshiiskani maanta u saxiixay siyaasadaha wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle halka uu Mareykanka u saxiixay safiirka u fadhiya Soomaaliya Danjire Donald Yamamoto. waxaa sidoo kale heshiiskaasi goobjoog ka ahaa siyaasadaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan u joogno in aan saxiixno heshiiskii inaga iyo Mareykanka ka dhaxeeyay ee deyn cafiska. runtii si aad u ogtihiin tallaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday. arintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiskii generalka ah ee la soo sameeyay caamka ee la soo sameeyay. America waxay qayb ka tahay hormoodna ka tahay Paris Club qolada la yiraahdo iyo qayb ka tahay iyagaana hormood ka ah. ayaga discussion weyn ma la galay Mr Prime Minister. discussion ka 31 bishii March ayaan la galay. dabeetana waxa la gaaray general reduction in la sameeyo oo iyagoo isku dhan ay sameeyaan general reduction billion iyo 400 milyan ay naga daayeen isla maalinta. waxa dabeetana la isla gartay in dawlad loola hadlo wadanada dawlad loo tago. marka dawladii bay tani markaa ka socota. dawladda America, dawladda Spain, dawladaha qaybta ka ah Paris Club ayaan marba dawlad la hadlaynaa. mar dawlad walbana sanad wada saxan doonaa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Injineer Roble ayaa dawladda Mareykanka uga mahadceliyay taageerada ay la garab taagan tahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. marqaatiga ka noqday saxiixan oo deynta loogu cafinayo Soomaaliya. marka koowaad dawladda Mareykanka United States of America way ku mahadsantahay always supportiga in la siiso oo aad iyo aad ay ugu dadaalaan markasta inay garab istaagaan especially Ambassador Donald Yamamoto oo aad wax badan uga qabtay Soomaaliya har iyo habeen garab taagan isaga loo ku mahadsan yahay. tallaabadan ay dawladda Mareykanka Soomaaliya uga cafisay qaybtii uga soo aaday deyn cafinta dalalka naadiga Paris ayaa tallaabo kale oo Soomaaliya u dhaweynaysa in si buuxda deymaha looga cafiyo isla markaana ay u gaarto horumar dhaqaale. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.